munaasabadan oo lagu maamuusayay 10 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska shirkadda TNS ee Soomaaliya laguna bixinayay abaalmarinada guuleystayaasha sanadkii dhamaaday ee 2022 ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda, siyaasiyiin iyo dadweyne kale. shirkadda TNS oo ah shirkad ganacsi ayaa bixisay adeegyo kala duwan, waxaana mas'uuliyiinta shirkaddu ay sidoo kale sheegeen in hadafkoodu uu yahay in bulshadu ay hesho dhaqaale madax bannaan. agaasimaha guud ee shirkadda TNS Siciid Maxamed Xasan, madaxa suuqgeynta ee shirkadda Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil iyo Ciid Daahir Maxamed oo ah madaxa guud ee Soomaaliya ee shirkadda TNS ahna madaxa Geeska Afrika ee shirkadda ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay. aniga waxaan rabaa mowduuca kaliya aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay shirkaddaani faa'iidooyinka ay bulshada u hayso. bulsho fara badan ay hadda ka faa'iideystay, kuwa kalena dabcan ay rabaan ama aan u baahanay inay ka faa'iideystaan. shirkaddaani waxay soo saartaa ama waddanka keentay alaab herbal ah tayo leh